wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada xubinta hadalaynta baraha bulshada ee barnaamijka Saakiya Caalamka. Aan ku bilaabay baraha bulshada ayaa muhiim u ah soo saarista fikrada cusub ee cilmi baarista iyo wadaagista afkaarta kala gedisan waxayna muujiyeen in kastoo ay jiraan kala duwanaanshaha anshax marinta cilmi baarayaashu waxa ayna u adeegsanayaan aaladaha sida wax qorista iskaashiga midaysan fariimaha degdega ah sida ay uga hadlaan asxaabta iyo aalado kale oo ay kula wadaagaan faylasha sawirrada iyo dokumentariyada. Wuxuu qoray in cilmi baaristu ay tahay udub dhexaadka wax loola jeedo aqoon-yahan iyo arrimaha ku saabsan tayada iyo isku halaynta ayaa muhiim u ah joogtaynta maqaamka iyo sumcadda jaamacadaha. Habtaxanaha leh sidaas darteed maahan wax la yaab leh sida cilmi baarayaashu ay u doonayaan inay fahmaan halka ay ka imaan karto suurtagalnimada aaladaha cusub ay kor u qaado dhankooda iyadoo isla mar ahaantaana loo ilaaliyo astaamaha ugu muhiimsan ee cilmi baarista. Inkasta oo cilmi baarayaashu ay leeyihiin aragti wanaagsan oo ay ku saabsan adeegista website-yada warbaahinta bulshada ee isgaarsiinta sayniska guud ahaan weli waxaa jira su'aalo aan laga jawaabin oo ku saabsan faa'iidooyinka ay leedahay aaladaha noocan oo kale ah iyo sida loo dhexgelayo hababka lagu kalsoonaan karo oo loogu talagelayo xakamaynta tayada oo loo furo faafinta aqoonta cilmiga ah ee internetka. Walwalkan ayaa laga yaabaa inuu soo cusboonaado oo uu dunida saameyn mahadhaca ku reebo maadaama warbixinada loogu yeero joornaalada saadaasha ah lagu daabaco been abuur maqaalo saynis ah oo isku duuban waqtiyada qorista Bayle liiska suurtagalka ah waxaa ku jira 680 joornaal oo ay qoraan si joogto ah website-yada caalamku. Sadaalintan waxa ay u tagtaa cilmi baarayaasha waxayna ku casuumaysaa in ay ku daabacaan joornaalka iyaga oo ka soo horjeeda lacag maadaama ay yihiin waraqado dhammaystiran oo qarsoon. Tusaale ahaan ay qoraan jilayaasha taxanaha telefishinka Sambros oo la aqbalo la daabaco 2 su'aalood oo ku saabsan tayada. Dib u eegista asaga ayaa loo soo qaadaa falalka joornaalada saadaasha waxa ayna wax u dhimayaan aaminaadda qof kasta oo daabacan sayniska isla markaasna shaki weyn geliya xitaa haddii uusan wax badan kala socon. Haddaba daawadayaal qodobkan ayaan intaa ku soo gabagabaynaynaa oo aan ku eegaynay qaar ka mid ah cilmi baarayaasha caalamka oo eegay saameynta guud ee baraha bulshada iyo weliba isticmaalka adeegyada kala duwan ee aaladaha baraha bulshada ay ku leeyihiin bulshada. Aan dib kugu celiyo qaybaha dhiman ee barnaamijkii Axmed Maxamuud Jaamac.